niyo maalmahan waxaa horta aad u soo badanaya rag TikTok isticmaala ama meelaha kale ee baraha bulshada ah oo iyaga oo wax wajiga marmarsanaya qasqas iyo waxyaabo caynkaas oo kala ah oo ay ku tilmaamayaan in waxaas yahay wax lagu tilmaamo skin care iyo wajiga la marmarsado iyo kareemiye iyo waxyaabo la isku soo qasqasay kullee inay tahay aan malaynayo skin care-ku horta ninka ragga haddii si loo fiiriyo dhaqan nin rag ama aha haddii si loo fiiriyo dhaqanka ragga kuma jiro sababta waxyaabo wajiga la qorqorxiyo iyo wajiga la qorqoray iyo timaha waxaan jeedaayay xiribaha la soo waxay magaranaysaa waa afaaro dumarku ay khaas u leeyihiin weeyaan skin care-kaas maxaa ku xiga hadhow toole inuu ninku oo make up wajiga marsada ku xigta skin care waa meesha ay ka bilaabanaysa balaayadu weeyaan hadhow toole waxaad arkaysaa ninkii shalay aad garanaysay oo make up wajiga marsanaya cidiyaha marsanaya ama casayso marsanaya ama wax kale oo ay dumarku marsadaan marsanaya sheekadu maxay ka soo bilaabatay inuu ninku ku bilaabay waxaan wajiga marsadaa waxaanay dhahaan skin care hadda koorba wargeys aan ka akhrinayay oo ku saabsana dalka China wargeyskaas waxa uu sheegay in dalka China ay raganimadii dabar go'day hadda raganimadii ayaa dalkaas ka dabar go'ay rabtiiba toos sababta ragga ahaa ee loogu talagalay raganimadooda magaranaysaa inayba kor u sii qaadaan oo rag adag ay noqdaan ayaa raggii dalka China oo dhan ama dhalinyaradii in ay wada marsadeen qasqas iyo magaranaysaa make up wajiga marsadaan xiribaha inay duuduubaan in magaranaysaa gabigoodiiba afki ay xamuurad marsadaan la kala garan waayo qofkani ma ninba ma naagba hadduu qofki kaa soo horbaxo maba kala saari karaysidba inuu qofkan yahay ma ninba mise waa naag weeyaan xataa wargeysada waa idiin soo xigan dooga screenshot-ka ka soo qaadaa waa idin tusi doonaa nacam dalka raganimadii ayaa dabar go'day madaxweynaha dalkaasi wuxuu amar soo saaray in uu joojiyo ragga caanka ah ee magaranaysaa dalka China dhalinyarada caanka ee dalka China in marsada make up-ka in TV-yada laga mamnuuca inay laga wareysan kareynin sababta uu uga mamnuucay waxa weeyaan dhalinyaradii hadda soo kacaysay ayay ku baraarujinayeen inay marsadaan make up-ka iyo qasqaska iyo waxyaabaha caynkaas oo kala inay marsadaan dhalinyaradii dalka gabi ahaanba waa la mamnuucay in ragga la wareysto dhalinyaradii iyagu dugsiga hoose ama dugsiga dhexe ah waxaa loo diray tababar military ah si ay u soo noqdaan raggaasi rag nacam raganimo ka muuqato rag adag oo ay raganimadu ka muuqato si hadhow tole haddii uu dalkooda cadow ku soo duulo ay u difaacaan oo ay ugu hortagaan laakiin nin qasqas marsaday oo gebigiisuba yahay ma garanaysaa jiljilicsan oo qaab dumar leh haddii maanta dalkiisa la soo weeraro wax uu difaacaya ma lahan xataa dumarka isaga ka orod badinayo ka cararaya meeshii marka waxa weeyaan adoo nin adag noqon kara oo xataa haddii dalkiisa maanta ay dhibaato qabsato difaaci karaya haddii aan taa China aan soo noqono dhalinyarada 2 sano ama 1 sano oo tababar ayaa loo diray oo tababar military ah si ay raggaas u soo noqdaan rag adag ah waa China weyn waxa soo la dagaalamaya in qoomka xun ee qoomuluudka ay la dagaalaan sababtoo ah sheekada qasqaska waxa ku hoos duugan qoomka kale ee foosho xun ba ku hoos duugan marka adu ilaahay ka dhigay nin rag ah haddii aan Soomaaliya u soo noomano Soomaaliya wiil yaro isaguna waxa jira dhalinyaro badan oo iyaguna hadda bilaabay oo qasqaska marsada ama waxaanay dhahaan skin care-ka marsada dadweyne oo TikTok dhexdeeda inta soo dhex istaagto ayaad adoo wajiga wax marmarsanaya kareemiyo iyo waxyaabo qasqas la isku soo dardaray oo wajiga marsanayso raganimada ka muuqata maxay tahay marka aad adiga oo nin rag ah ilaahay ka dhigay aad qaabkii dumarka aad